magaalada muqdisho lagu qabto waxaan rajeynayaa insha allah sanad walba inay noo noqoto caado noo noqoto oo intaan uu ka sii ballaarto haddii uu yiraahdo xaqiiqatan shirweynaha maanta dowladda iyo culimmadu ay goobjoog ka yihiin ay soo wada qabanqaabiyeen ay ka wada shaqeeyeen macnaheedu waxay tahay in la gaaro waktigii culimmada soomaaliyeed ay qaadan lahayn kaalintoodii sax ahayd iyagoo midaysan waa ku faraxsanahay inaan arko maanta culimmadeennii oo midaysan iyo dowladdoodii oo wada shaqayn toos leh mawduuca laga hadlaayo saddexda bil soo socotana ay tahay culimmada soomaaliyeed iyo dowladdu inay lahaadaan wada shaqayn ay ka wada shaqeeyaan arrimaha amniga arrimaha dib u heshiisiinta tan labaad inaan ka hadalno maxaan ku yidhaahdaa xagjirnimada iyo sidii loogu hortegi lahaa ama sidii loola dagaali lahaa xaqiiqatan xagjirnimadu annagu waxay noo geysatay dhibaatooyin aada waaweyn ay ugu horeyso inay la dagaalamaan xagjirka oo annagu aan dhahno argagixisada dowladnimaduna inay la dagaalaan ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin shacabkeenna iyo dadkeenna ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin diinteenna suuban ay cadow ku yihiin inay cadow ku yihiin quruxdii iyo sharafkii dalkeenna uu lahaan jiray ay cadow ku yihiin sidaas darteed waxaa weeye in culammadu soomaaliyeed oo midaysan ay saddexda bilo soo socota ay uga hadlaan sidii loo cadowgaas ummadda soomaaliyeed looga qaban lahaa iyo wada shaqayn buuxda culammada soomaaliyeed iyo dowladdu ay u lahaan lahaayeen waxaan rabaa inaan idiin sharxo oo warbixin yar idinka ka siiyo waxa aan ka wada shaqaynayno iyo caqabadaha na haysta waxaa laga yaabaa qof walba inuu soo arko laakiin iyadoo dhab ah waxay tahay waad la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaalaysteen dhiigga shacabkeenna ee muslimiinta ee soomaaliyeed ay ku xalaalaysteen ama ay burburiyaan dunyadeenna ay burburiyaan taas waa mid waxay ay cadow ku yihiin waxyaabaha caqabadaha dalkeenna haysata waxaa kaloo ka mid ah oo aan wada ognahay qabyaaladda oo dhowr jeer lagu soo celceliyo iyo waxa aan ugu naqaano awood qaybsiga oo runtii dee markii laga hadlaayo dowlad wanaag marka laga hadlaayo meelay ka soo geli karto in qabiil wax lagu qaybsado ma garanayo meeshay ka soo geli karto meelay ka soo geli karto qarannimo iyo qabiil ama qabyaalad ma garanayo annagoo doonayna inaan caalamka la tartanno oo dalkeenna runtii uu noqdo waddamada ugu wanaagsan haddii aan awood qaybsigeena ku salaysan yahay sida ay tahay waxay la tahay waa soo aragnay 18 sano siday wax ahaayeen haddana haddii aan laga gudbin waxay la tahay waxaan gelaynaa muddadaasi muddo ka dheer oo tiyo iyaan gelaynaa waxaa la sheegay dhibaatooyinkaan qabno waxa weeye dhaqan xumo siyaasiyiinta ah ama siyaasadeed oo runtii aan la garanaynin qofkan siyaasiga waxa uu u yaqaano mucaarad iyo waxaa loo yaqaano dumin mucaaradku waa wanaagsan yahay waa wax wanaagsan in lagu kala fakra duwanaado qof walba ra'yigiisu soo jeediyo uu ka hadlo program iyo agenda uuna sheego solution xalkiina uu ku daro uu yidhaahdo maalan dowladdu programyadaasi way ku khaldan tahay waxa weeye solutionka xalkuna waa 1 iyo 2 iyo 3 taasi ma aha mucaarad ma aha waa qof doonaya oo constructive oo doonaya inuu dowladnimada maxaa kula gacan ka geysto dhismaheeda laakiin dumin yaa jirta markii laga hadlaayo dowladnimada dhan in geedka jirka loo gooyo oo loo diido xasilooni loo diido oo la bilaabo waxyaabaha aan naqaano oo qallaaso siyaasadeed iyo khilaafaad oo laga hadlo dowlad
dowladda dhan in la bedelo oo loo tago beesha caalamka lagu dacweeyo taasi waxa weeye waa dumin weeye ma aha mucaarad ma aha iyo laftigeeda waa caqabadaha la haysta waxaana haystaa faragelin shisheeye oo runtii muddooyinkii dowladnimadii naga burburtay kadib caado noqotay bacdama aan noqonnay maxaanku idhaahdaa wiik aan noqonnay ama aan tabar darnaanay in cid walba ay isku daydo wixii ay ka heli karto ama saameyn ama dhaqaale ama dano kale inay soomaaliya faragashato taasna haddii xitaa ay ku heshiin lahayn soomaaliya inay istaagto waxba ma ahaateene iyaga dhexdooda isu diidaya maxaa yeelay mid walba wuxuu rabaa saameyn ka badan kan kale inuu lahaado iyo annagoo u fuudeenay oo dadkeenu inta badan ay aamineen haddii beesha caalamku aysan garab taagnayn inaysan dhaqaaqi karin taasna waxay keentay in dad badan ay isdhiibaan oo laisu dhiibo shisheeye laisu dhiibo burburka institutionska dowladda haddaad aragtaan dowlad xoog leh dowladda xoogga leh waxay haystaa institutions hay-adaha dowladda oo xoog leh oo shaqeeya ayay haysataa oo dadka ka shaqeeya ay maxaan ku idhaahdaa lagu shaqaalaysiiyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin laakiin heerta ay leeyihiin aysan meelna ka soo gelin ilaa annaga hadda waxaan ku qaybsannaa waa 4.5 iyo awood qaybsi qabiilaan ku qaybsannaa laakiin haddii aan doonayno institutionska inuu dib loogu dhismo waxaa la rabaa laba qof oo waala ah haddii ay wax tari karaan qarnimada iyo dowladnimadeena in garab lagu siiyo laguna taageero laakiin haddii la yidhaahdo ha lagu bedelo si maxaan ku idhahdaa awood qaybsigii sidii ay la rabay ama sidii ay ahayd in laga dhigo waxa weeye burburka institutionskeena way ku jirayaan laga soo bilaabo ciidanka iyo civiliankaba ciidanka iyo civilianka labadaba waxaa intaas ugu daran dhaqaale xumo baahsan yaa dowladnimadana haysata wax kalena ma aha caruurintii la aaminin lahayey canshuuraadkii yaan sidii rabay ahayn maxaa yeelay dadkeenu dowladnimadu waxaa laga yaabaa intooda badan inaysan fahamsaneen inay aqoontooda ku yarta wax dowladnimo tahay oo dowladnimo loo arko wax qof leeyahay shakhsi ah laakiin aan loo arag wax ummad oo dhan u dhaxaysa oo qof walba uu wax ku darsado hadduu yahay qofku shacab inuu ku darsado maxaan ku idhahdaa dhaqaalihiisa iyo canshuurtiisa qof hadduu aqoon-yahan yahay aqoontiisa uu ku darsado qof walba waxa uu isagu karaankiisu way tahay inuu ku darsado oo weliba qofka u shaqeeya dowladda naftigeeda inuu ku darsado inuu daacad u ahaado shaqada uu hayo uusan ka dhigin wax isaga uu leeyahay caqabadahaas iyo kuwo ka badan ayaa runtii dowladnimadan haysta sida keliya looga hortegi karaa ama looga bixi karana waxay tahay annagoo ka shaqeyna dowlad wanaag oo aasaas u ah daacadnimo iyo sida diinteena noo sheegayso ammaanada ummaddu ay u dhiibatay mas-uuliyiinta inay u hayaan cadaaladna ay ku maamulaan taasi waxaa la faray qofka mas-uulka ah taas yaa waxaa la rabaa inay u noqoto aasaas u noqoto dowladnimadaasi waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye ciidan wey haddaadan ciidan lahayn ma noqon kartid state qaran ma noqon kartid ciidankaasi waa inuu awood u leeyahay dalka inuu difaaco haddii ay tahay cadow shisheeye iyo cadow gudaba ciidamadaas waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan amniga iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo xasiloonida inay ilaaliyaan haddii dalku uusan ciidan lahayn ama ciidankiisu u kala qaybsan yahay siyaabaha aan sheegay oo hore dalkaasi ma noqonayo dal istaagan oo runtii la tartami kara ama la jaan qaadi kara caalamka intiisa kale tan ugu muhiimsan waa culummada maxaa yeele culummadu waa indhaha bulshada wey waa culummadu waa dadka keliya ay shacabkeenu ku midaysan yihiin inay dhegaystaan markii culummadu ay taageerto dowladdeeda oo caqabadahan aan sheegay ay qayb ka noqoto sidii caqabadahan maxaan ku raha looga hortegi lahaa
ama wax looga qaban lahaa waxaan aaminsanahay boqolkiiba 50 dhibaatada Soomaaliya inay yaraan karto yaan aaminsanahay maxaa yeelay culimadu waxa weeye maalin walbaba de waxay ka hadlaan waxa xaq ah waxa wanaagsan ay ka hadlaan marka waxa wanaagsan oo xaq ah ay ka hadlaan haddii ay ku apply gareeyaan dowladnimada iyo shacabkaasu inay ahaadaan shacab ka dambeeya madaxdoodana ay ku amraan ama ay kula dardaarmaan sida aan sheegay inay ka shaqeeyaan wax wanaagsan iyo maslaxadda ummadooda ay ka qayb galaan sidaad sheegteen arrimaha amniga oo qolooyinkan dhibka wada oo runtii argagixisada ah oo xagjirka ah inay bannaanka u soo saaraan oo ay la hadlaan oo ay kala hadlaan sidii dad kalaysan ugu biirin kuwa ku jirana ay uga soo celiyaan intaas keliya maaha haddii xitaa suuragal tahay in aad ka wada shaqaysaan dib u heshiisiinta dowladda iyo iyaga waxa weeye waa door waa kaalin culimmada Soomaaliyeed u furan maxaa yeelay kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen haddaad tustaan maxaan ku idhaahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awooddoodu ay yaraanayso 11 sano yaa 11 sano la marayaa hadda dalkan inta uu dagaal ku jiro dagaalkaasi uu yahay dagaal xag jireed dagaal argagixisa waxaa soo maray 4 maamul oo anigu aan ugu dambeeyo ilaa intee way sii soconaysaa marka waa baaba'een iyaguna annagana waana baabi'iyeen ilaa intee yaan rabnaa inaan gaarno waxa baaba'ayana waa ummad Soomaaliyeed weeye waxa iyaga ka baaba'aya waa wiilasheenii waxa ay baabi'inayaana waa wiilasheenii iyo hooyooyinkeenii iyo carruurteenii iyo dadkeenii haldoorka ahaa yaan u faa'iideynay marka yaan u faa'iideynay waxa weeye ilaahay hanoo soo hadeeyo ilaahay hanoo soo celiyo idinkuna inaad kaalintaas qaadataan oo aad la dardaarantaan markaad midoodaan waana midaysantihiin ilaahayna haguu sii mideeyey waxaan aaminsanahay inay soo noqon doonaan waqtiga ahaato aysan sugin ilaa iyaguna ay tirtirmaan annaguna dhibaato badan ay noo geystaan ummado kale iyo shisheeye kalena aysan naga faa'iidaysan culimmadu doorkoodu waa cad yahay doorkoodu waa saan sheegay waa indhihii ummadda Soomaaliyeed iyo indhaha guud ahaan muslimiinta caalamka inaad si sax ah oo wanaagsan oo runtii nidaamsan aan u wada shaqeyno cadowgaas nabada haysta cadowgaas nabada dhibaya oo dhibka nagu hayana aan isku meel uga soo istaagno tan kale waxa weeye caqabadahan sheegay lagu hortegi karo waa shacabka Soomaaliyeed iyo culimadooda iyo dowladooda oo wada shaqeyn leh oo wada shaqeynaya haddii intaas aan soo helno waxaan aaminsanahay oo aad ku guulaysataan ama aad si xoog uga shaqaysaan wacyigelinta iyo kor u qaadista wacyiga shacabka Soomaaliyeed oo aad ku wacyigelisaan in nabaddu ay wanaagsan tahay nabaduna maxaan ku keenteedu ay tahay mas'uuliyad wadareed dowladana lagu taageero gacan lagu siiyo waxaan aaminsanahay in nabadda Soomaaliya ay aad iyo aad u soo dhawaanayso waxa kale oo iyagana qayb weyn ka qaadan kara ganacsatada oo ilaahay xoolihiisa siiyey xoolahaas inay ku bixiyaan sidii dalkan uu nabad uu noqon lahaa sidii dowladdu u istaagi lahayd sidii dowladdu ay u haysan lahayd dhaqaale ay maxaan ku raahdaa howlaha amniga iyo howlaha adeega bulshada ay ku fuliso aysan dowladda aadin dad shisheeye oo aysan ka raadsan dhaqaale aysan ka raadsan marka iyada laftigeeda waxa weeye waa door ama kaalin culimmadu ay runtii qaadan karto shacabkana ay kala hadasho inay dowladdan iyadaa iska leh oo dowladdu waa shacabkii weeye inay bixiyaan kow nabadgelyo kala shaqeeyaan canshuurtana bixiyaan ganacsatada saasoo kale lagu dhiirigeliyo inay qayb ka qaataan inay bixiyaan canshuuraha si dowladdaasi ay u qaato mas-uuliyaddeeda oo ah arrimaha adeega iyo wixii la mida shirweynahan waxaan rajaynayaa insha allah inuu noqdo shirweyne taxana ah oo socda
bacdama uu yahay maanta kii ugu horreeyey in sanadla uu noqdo sanad walba aan qabanno oo weliba marka ugu dambaysa insha allah aan gaarno inaan isbartiyada ku qabanno oo ummadda soomaaliyeed kulli aan ku casilno annagoo hal ah annagoo mid ah guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hadalkaygu intaas ku yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu